magaaladan waa one of the green cities ayaa lagu tilmaamaa. Waa mid ka mid magaalooyinka ugu cagaaran Hindiya. waliba awad ama abaalmarina lagu guddoonsiiyaa xarumaha gaarka loo leeyahay kuwa dawladda ee ka shaqeeya inay dhireeyaan ama greenery-ga ay ka shaqeeyaan. waxaan joogaa saaxiibayaal magaalada Hyderabad ee gobolka Telangana ee koonfurta Hindiya. waxaan u socdaa inaan intuso view-ga magaalada Hyderabad. Waka view. That's the view of Hyderabad. Hello. कैसे? حلي أو هلا إيش هذا؟ ضرورة جرته من قرح ضرورة تاسوس تده إن كان موضوع حواي ولك كم إذا لقيت كويه المجال هذا Hyderabad ولوكاس كل بعد إني جاري يعني لما أكون أولك أنا هروين magaaladan waa magaalo kala sareysa magaaladan waa magaalo kala sareysa oo يعني هيلس اللي هذا يعني I don't know يعني magaalo siman ma ahan oo flat ah waa magaalo buuraley ah يعني salaada buurtan iga gaashido kala waxaas waa buurooyinkaas ay magaalada inta badan xoogeeda ahayd dabaqaas ay u jeedaan oo kala ah waxay u badnaayeen badina ay yihiin bas saxda ah burooyin la jabiyay ama dhul hoose oo deegaan deg ah oo buur ka hooseeyay oo dabaq laga dhisay. hadda salahan buurtan waxa laga yaabaa inay sii dheer tahay ilaa 400 mitir oo dheer ah. saasay tahay ma sii ahaanayso mustaqbalka dhow sababtoo ah magaaladan waxaa ku socdaa deegaameysi zaa'ida oo xagga horumarka ah. shirkado cusub ayaa soo gelaya maalin walba. waxaa ugu dambeysay shirkadda McDonald oo xafiis weyn ka furatay halkan. xafiiskaasoo ah xafiiskii ugu weynaa ay McDonald ka furato meel ka baxsan Mareykanka. waxaa qorshu yahay in xafiiskaas uu shaqaaleysiiyo in ka badan 5,000 oo Hindi ah. wuxuuna ka furnaa waxay ka furtay magaalada Hyderabad. marka company walba adduunyada jooga oo caana Amazon wax walba leh meeshan waxa xarumo ay ku leeyihiin. magaaladan waa magaalada afraad ee dunida ugu horumarka badan. waa aad u kobcaysaa u dhismaysaa. dadka ku nool aqlabiyad badan oo sameynaa ku nool magaaladan oo maaragtay guri ugu yeera. taariikh badan way ku lahayn muslimiintu halkan ilaa dan raadkii muslimiintu way ka muuqdaan. magaca Hyderabad laftigiisa ayaaba ah magac islaami ah sida Islamabad oo kala Ahmedabad. marka waa cajiib bilaadanka xawadu aqligiisa ka shaqeeyo dhulkaas buuraleyda ah ayuu wuxuu ka dhigi karaa dabaqaas iyo wax ka qurux badan oo dhismooyin ah. annagana imisa dhul falaad ah oo fidsan waan buuraley ahayn aan awoodi weyne inaan ka dhisano guri idaara qurxoon iyo inaan ka hirgelino nolol aan aakhiro horteeda adduunyada inta aan lahay aan ku raaxaysano. hadda meeshaan aan joogno
magaalada qaybteeda ugu dambeysay magaalada meeshii looga baxay hadda joognaa dhulkan dawqaas u jeedaan wixii la midka ah waxaa loo diyaarinayaa badankooda inay noqdaan kuwa la deegaamisto qaarkoodna waxay noqdaan kuwa for business ah marka meeshaan waxay noqon doontaa financial district dadka maalqabeennada ah iyo dadka maaragtay maalqabeennada ay degaan xarumo ganacsi waaweyn laga furo shirkado waaweyn ay halkan maaragtay ka samaystaan xarumo waaweyn ka samaystaan